بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan kaga hadlayaa aniga oo wata magaca ciidanka asluubta waxaan halkan kaga hadlayaa dhacdadii shalay ka dhacday kawaanka malayga israsaasayntii halkaas ka dhacday aan rabaa inaan faahfaahin fiican ka dhiibo maadaama odayaashii halkaas marayay ay dhaheen annagana loogu dan laha yaan rabaa wax runa inaan ka sheego laba carabna maliyo shalay waan hadlay laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta ciidanka asluubtu faalan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama taliye ciidanka asluubta ana ciidanka asluubtu waa ciidan qaranka Soomaaliyeed ayay meesha u joogan hawshii loo idmadayna hayaan inta gooboodo ay degan yihiin hawshaasay ka wadaan uma joogaan inay qof ku dhibaateeyaan uma joogaan inay qof Soomaali ah ku dilaan muwaadin Soomaali inay ku dilaan uma joogaan darajo kasta ba wato ama ha soo wara ama ha soo mar ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogaan waxay u joogaan inay ilaaliyaan amniga qaranka iyo ummadda gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo gaar ahaan maxkamadaha iyo maxaabiista xabsiga dhaxal lagu hayo qof muwaadina oo target ay u yihiin ay amar ku qabaan inay dilaan ma jirto mana dhici karto tiri aniga la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raali gelin ha ka dhiibeen waxaan leenahay waliba mas'uuliyiintii wadanka soo martay meesha ugu sareyso arimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raali gelin ha siiyeen ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqeynaynin waa ciidan aan arimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tagaynin kaliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wata waay taas waa shaqadii ciidanka asluubta madaxda aan raali gelinta ka rabnana ayagu ma sugaynine kelmadda ayada haday cid u sheegtay wataas waxaan doonaynaa ciidankoodii baan nahay inay naga raali geliyaan ayaga nabadgelyadooda ilaalinayna ummadda nabadgelyadeeda ilaalinayna dalka waxa yaala waa ogtihiin wadada kaliya ugu nabadgelyada badan halaha yarka aan degan oo la maray wadada kaliya dalka ugu nabadgelyada badan waay waxaan codsanaynaa annagana inaysan dacayadeynin waxaan ahayn ay nagu sheegin askartoodii baan nahay ayagaan ilaalinayna waxaan codsanaynaa cid meesha maraysa inay sheegto la hubsado cid kasto maraysa noocu yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askarta adawga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan xafiisyada dawladda ka ilaalinayaan maahane ma ilaalinayaan nin Soomaali oo wadadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogaan midaan hal la qaato runtii tan waay hadalka runtiisi waa tan haddaan run la sheegin been qarsanay Soomaalidu tiraahdo siday wax u dhaceen ku daraya gaariga Cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago oo yiraahdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud aan wadnaa askarta jidkay u furi lahayd waa la soo dhaweyn lahaa ma dhihina gaariga waa gudbay distan dheer baa u dhaxay markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan baabuurkii gudbay dib u rasaas u soo riday u soo xabaday kaamira jirta ummad badan joogtay magaalada weeye wax cad waay waxa aniga aan sheegay dhibaatada Cabdibilaha sameeyay wuxuu bedeli gaaray ninkuu waardiyeynay hadii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogeyn oo xabad kugu soo rido adna xabad haysatid faataha lama aqrinaya xabada loogu jawaaba arrinka sidaasay ku dhacday xabadu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen Cabdibiluhu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahaan mas'uulkaasaan wadnaa haddaba jidku maray waa loo furay abarta waa la soo dhaweey sidii madaxweyne asigoo ah hadan yaa gacmo loo lulay oo jidka ku maray
marka kalena hadday sheegi lahaayeen saas u mari la habeenii maalinna way maraan